haatan waxaa bilowday qorshihii iyo hanaankii lagu hirgelin lahaa xeerkan ka dhanka ah tacadiga kufsiga oo kol hore ay ansixiyeen golayaasha dowladda Puntland waana jihada kulankan oo ay soo xaadireen wasiirada cadaaladda ee Puntland Galmudug iyo Jubbaland saraakiisha ugu sarreysay hay'adaha UNFPA UNICEF iyo EU-CAP ee Puntland iyo sidoo kale xubno matalayay bahda xeer ilaalinta ee Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya hay'adaha qaramada midoobay iyo midowga Yurub ee wakiiladooda goobtan ay joogeen waxay si cad u qeexeen doorkooda ku aadan in la hirgeliyo xeerkan ka dhanka ah kufsiga wasiirka amniga iyo hubka dhigista dowladda Puntland Axmed Cabdullaahi Yuusuf Dawlad ayaa tilmaamay in laamaha ammaanka ee Puntland ay diyaar u yihiin inay soo qabtaan eedeysanayaashan dambiyada kufsiga lagu soo oogo kuwaas oo ay ku simi doonaan hay'adaha baaritaanka iyo laamaha garsoorka ee Puntland annagu wasaaradda amni ahaan meeshan ka soo galayno haweeye cudurkan ah disease-ka ku jira waxa weeye waa virus society-ga ku jira una baahan dagaal iyo daawo saddexda wasaaradood ugu muhiimsan oo ay yihiin inay iska kaashadaan oo gacmaha isqabsadaan lana dagaalamaan waa saddexda wasaaradood oo wasaaradda haweenka amniga iyo cadaaladda oo ah pillars ama tiirar isku xiran taaskoodu aad buu u ballaaran yahay dembigaas iyo qofkaa dembiga galay isagoo on in la soo baaro oo isagoo oo la hubo inuu isagii yahay iyadoo la ilaalinayo inaan qof kale lagu xadgudbin ultimate-kana loo dhiibo marka sharciga in la mariyo wasiirka arrimaha qoyska iyo horumarinta haweenka Puntland Maryan Axmed Cali waxa ay ku baaqdeen dhammaan hay'adaha fulinta xeerkan quseeyo in ay si joogto ah u wada shaqeeyaan si loola dagaalamo kuwa caadaystay dambiyada kufsiga wasaaradda cadaaladda waa ku mahadsan tahay runtii ilaa iyo heer inay soo gaarsiisay sharciga kan ay dhameystirtay ay maanta noo hor keentay iyo dawladdeena aan ugu mahad celinayno inay u bareereen inay saxiixaan waxaan sameyn doonaa si dhaqaalaha ayna siiyaan international community-ga ugu beeqaamo cid walba waxay leedahay waa taqaan wasaaradda haweenka cadaaladda caafimaadka iyo wasaaradda amniga war walaalayaalow yaan wax la kala jiijiidanay waxaan yeelaynaa nin walba shaqadeeda waa taqaanay one implementation paper we have to do it yaa oo cid walba meeshay ka soo galayso ku caddahay wasaarad walba iyo shaqadeeda waxay tahay afarteena waa naqaanaa marka waxaan ka codsanaynaa marka inta sameeyno oo mid wanaagsan aan keenno kulligeena ka wada warqabno international community-ga inay nagu caawinaan siday u maalgelin lahayd oo billahi tawfiiq Puntland waxay u muuqataa xilligan inay doonayso inay ka gudubto nidaamka odayaal dhaqameedku ay ku xallin jireen falalka kufsiga go'aamadaas oo inta badan sida la tilmaamay baalmarsan cadaaladda dhibanaha kufsiga loo geysto wasiir ku-xigeenka ahna kusimaha wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dowladda Puntland Cabdi Fataax Walloore iyo agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Puntland Maxamed Cali Faarax waxay siyaabo kala duwan diiradda ay u saareen ahmiyadda xeerkan uu u leeyahay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland waxaan halkan uga mahadcelinaynaa dhammaan hay'adihii ka caawiyay wasaaradda sameynta ansixinta iyo daahfurka dhaqangelintiisii wixii ilaa hadda qabsoomay oo ay ugu horeyso hay'adda UNFPA oo run ahaantii habeen iyo maalin ku talagashay in sharcigaani uu geed walba hoostiisa gaaro in hooyooyinka Soomaaliyeed ee la kulma tacaddiga kufsigana insha Allah ay ugu badbaadi lahaayeen dhammaanna ugu dhaqangelin lahaa degmooyinka Puntland insha Allah wasaaradda cadaaladuna waxay idin soo hormartay waa qorshihii si aad aqoontiina iyo fikirkiina aad maaragtay ugu dari lahaydeen aadan aw xirsi wasiirka wasaaradda cadaaladda ee maamulka Jubbaland oo lagu maamuusay furitaanka shirkan laba cishoodlaha waxa uu sheegay in xeerkani uu gaari doono dhammaan maamulada dalka iyo dowladda dhexe ayna tahay in Puntland looga daydo marxaladaha kala duwan ee hannaanka dowladnimada xeerar badan oo Puntland ka soo baxay ayaa tagi doona dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada sababtuna ma ahan in ay wax kale tahay Puntland dowladdii dhexe ee Soomaaliyeed ee sharafta lahayd oo uu madaxeedu sii muuqdo ayaa la yagleelay 7 sano kaliya dowlad lahaan ay danin meesha ay ka jiraan dowlad goboleedyo dhismay dhowr bilood ka hor meesha ay ka jiraan dowlad goboleedyo dhulkoodii oo dhan la haysta inta badan iyo meesha ay ka jiraan kuwa 4 sano ama 5 sano jiro Maxamed Cabdiwali Nuur Timire Puntland TV Garowe